deegaanka beerxaano oo ku suganahay hadda saaka waxa ka dhacay waxaan aad ugu faraxno sababtoo ah nimanka la yiraahdo shabaab ama khawaarij muddo 5 bilood ah dagaal ballaaran oo dadka deegaanka iyo ciidanka dawladaba oo iskaashanaya oo dhinaca ay kula jireen ayaa ka socday saaka waxaan dhihi karaa isku dayadii ay ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ay kamid ahayd waxa ay saaka sameeyeen waan ilaahay mahadiis ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo dib u xoreynta oo iskaashanaya ayaa darbaaxa lama ilowaan ayaa saaka waajibkii ay lahaayeen siiyay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynayaa ciidanka deegaanka geesiyaasha ah iyo ciidanka dawladaba waxaan leeyahay waa guul mar kastana inaad cadowga casharada noocan oo kale u dhigtaan waxaan dhihi karaa guulaha shabaab hadda aan uga xureynay gobolka Hiiraan qaybta bariga ayay kamid ahayd guulaha saaka hadda ugu dambeynta oo saaka la gaaray annagu xageena wax qasaara ma jiraan sideenaba dagaalka shabaab lagu jiro waa jihaad qofka naga dhaawacmana waxa waa si dhaqsi uu ku caafimaada keena dhintana waa shahiid wax qasaaraho saaka weyn oo na gaaray ma jiraan laakiin qasaara la gaarsiiyay ayaga sida xaqiiqiyan ah dhinaca hadda webiga dhinaciisa kale oo ay ka soo tilaabeen saaka oo xala ay ka war heleen ciidamadu inay soo gudbahayaan ayagoo targetkii ay lahaayeen aan wali gaarinna intay ka hor tageen ay fashiliyeen darbaaxa lama ilowaan ay ku gaarsiiyeen ayada lafteeda aan ka ilaahay yiraahdo waxaan filaynaa in laga xureyn doono maalmaha soo socdo waxaan dhihi karaa marka guul ayaa laga gaaray shabaabka dagaalka lagu jiro gobolka Hiiraan inta dhimanna waa la dhameystiri doonaa bahdina saxaafaddu waa mahadsantiin ha guuleysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabweynaha gobolka Hiiraan